السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada walaalayaal magacaygu waa Cabdullaahi Maxamuud. Maanta waxaan qaadanaynaa casharkeena saddexaad maanta wuxuu ku saabsan yahay qaabkii akoonkan open balance equity-ga lacagta looga saari lahaa oo loo gelin lahaa ama loogu qaybin lahaa dadkii maalgashaday ama iska lahaa shirkadda. sidoo kaleeto casharkeena waxaan ku qaadanaynaa qaabkaynu ugu soo dari lahayn maalgashade cusub shirkadda ugu soo dari lahayn oo lacagtiisa waxa weeye aan u diiwaan gelin lahayn iyo isagaba. marka intaan casharka horta gelin waxaan horta soo qaadanay qaabkii company shaqeynaya ama markaa cusub aynu waxa weeye QuickBook-ga uga diiwaan gelin lahayn. sidoo kale waxaan soo qaadanay deyn ka maqan qaabkaad u diiwaan gashan lahayd oo macmiilkaaga maqan. sidoo kale waxaynu soo qaadanay qaabkii deyn shirkadda awalka hore loogu lahaa loo record gareyn lahaa. bal horta aan tagno balance sheet-keeni. balance sheet-keena saad ka aragtaanin account receivable lacagta aynu macaamiisha ku leenahay waa $750. asset-ka inventory asset-ka shirkadda ku shaqeynayso lacagta alaabta shirkadda taalo ay ku shaqeynayso waa $5,400. marka total asset baa la isku dhahaa oo u dhiganta $6,150. sidoo kaleeto liability-gi account payable-ka lacagta shirkadda lagu lahaa waa $450. open balance equity-gi waa kan waxa weeye ma magacaawna lacagtaasin meesha ka saarayna akoonka ka saarayna oo waxaynu waxa weeye u qaybinayna dadkii maalgashaday shirkadda. casharkan maanta intaas ku saabsan yahay. okay marka ugu horeysa waxa soo furaysaa company waxaad tegaysaa halkan make January journal entry. okay halkan waxaad ku qoraysaa open balance equity. kadib waxaad samaynaysaa halkan aad waxa ku qoraysaa $5,400 bay lacagteenu ahayd balance equity-ga ku jiray $5,400. cidda iska leh marka magacaabinayna shirkadda laba nin baa wadaaga nin la dhaho Saciid Axmed Jama setup bayn dhahaynaa. okay waa equity ka mid yahay dadka shirkadda iska leh hantiilayaashu ka mid yahay baan dhahaynaa. okay continue dhahaynaa save and close. haddana waxaan dhahaynaa Jama lacagta ma wada leh wuxuu leeyahay 3,000 buu leeyahay. sidoo kale halkan waxaan ku qoraynaa ninka kale oo la dhaho Cabdisamad Mohammed isaguna wuxuu leeyahay 2,400. isna setup bayn dhahaynaa oo waxaan baraynaa QuickBook-ga wuxuu ka mid yahay baan dhahaynaa equity-ga dadka hantiilayaasha save and close baan dhahaynaa. okay marka waa soo xiraynaa khaanada save and close taasaan ku dhufanaynaa. okay haddaan u nimaano bahalkeena u nimaano balance sheet-keena u nimaano halkan waxaan uga jeednaa 300 bayn ka tagnay hadaay oo lacagta meesha inoo oleyd total waxay ahayd 5,700 bay ahayd. okay 3,000 baynu ugu daraynaa Cabdisamad Maxamed ugu daraynaa 300. okay open balance equity 300 Cabdisamad automatically marka waa garanaya isaga soo saaray QuickBook save and close banana. okay waka meeshii marka hadda open balance equity uu ka baxay oo waxa weeye lacagtii ragii loo kala qaybiyay oo shirkadda maal gashtay baa hadda nin kasta intuu maal gashtay la siiyay. marka casharkeen labaad aan rabno in qaadano waxa weeye qaabkii qof cusub maalgashade cusub aan ugu soo dari lahayn shirkadda ugu soo dari lahayn ama haddii qof uu maal gashto shirkaddii. okay isla markii waan tegaynaa waxaan ku dhufanaynaa make a general entry
marka ugu horeysa horta waxaan samaysanaa walletkii ama akoonkii lacagtu shirkadda ku ururi jirtay si waxa weeye haddii alaab la iibiyo oo kaleeto ugu soo dhacdo oo kashka lagu ururin jiray. Okay, waxaan dhahaynaa setup baan dhahaynaa, waa bank baan dhahaynaa. Okay, continue baan dhahaynaa, save baan dhahaynaa. Okay, marka waxaan dhahaynaa qofkaas wuxuu maal gashaday ilaa lacag gaaraysa $4,000 buu maal gashtay. magaciisu waa Axmed Cali baa shirkaddii maal gashanaya, $4,000 buu maal gashanaya. Okay, marka bangigeeni waa inaynu horta sameynaa walletkeeni khasnadeeni inay sameysano lacagtana kusoo dhaceysay kadib waxa weeye Axmedna lacagtii saa shirkadda loogu soo diro lacagtii lagala wareego. Okay, Axmed yuu ka tirsan yahay baa layidhi, maxaa weeye waa equity baan dhahaynaa, waa dadka hantiilayaasha weeye. Save and close baan dhahaynaa, kadib save and close aan kusoo dhufanaynaa. Okay, waa ujeedaan Axmed waa kusoo biiray oo lacagtiisu tahay 4,000 iyo waxa weeye lacagtiisu $4,000. Okay, bangigeenina ogadan ku arkayna khasnadeeni waa tan walletka maanta waxa weeye shirkadda waxay cash haysataa, lacagta cashka ay haysato $4,000. dadii wax soo iibsanayno kale iyadoo ku iibsanayna cashkaas ka soo iibsanayna. marka maanta casharkeenu intaas uu ku eegyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.